waxaan tijaabo ku sameynaynaa ilaa iyo 6 nooc oo fruitiska kamid ah si aan u ogaano cufnaantooda iyo cufnaanta biyaha mid ka badan. tusaale ahaan haddii aan ku hormarno liimo bambeelmada. si aad u samayso tijaabadan waxaad soo qaadataa weel ay biyo ku jiraan. ku dhex rid liintiyo qolofkeeda wadata. liintu way sabaysaa. haddana isla weelkii ku dhex rid liintiyo qolofka laga fiiqay. liintu way quustaa. liinta qolofka leh waxay leedahay dhis yaroo duleelsan kaasoo ay ka buuxaan hawo. tan macnaheedu waxa uu yahay liinta qolofka wadata way ka cufnaan yar tahay biyaha. taasi ayaa sabab u ah inay sabayso. laakiin liinta way quustaa isla marka aad qolofka ka fiiqdo. taas oo macnaheedu yahay liinta bilaa qolofka ah way ka cufnaan badan tahay tan biyaha. balse fruitiska qaar xitaa haddii aad diirka ama qolofka ka qaado cufnaantoodu isma bedesho. sida tufaaxa. ku dhex rid biyaha asagoo diirkiisa qaba wuu sabeeyaa. then asagoo diirka laga qaaday wuu sabeeyaa. tani macnaheedu waxa uu yahay tufaaxa labada marba wuu ka density yar yahay density-ga biyaha. liimo dhanaanta. ku dhex rid biyaha ayadoo qolofkeeda wadata way quustaa. then ayadoo qolofka laga fiiqay way quustaa. tani macnaheedu waxa uu yahay liintu labada marba way ka density badan tahay density-ga biyaha. Isbaandheska. ku dhex rid biyaha asagoo qolofkiisa wata wuu quusaa. then asagoo qolofka laga fiiqay wuu quusaa. tani macnaheedu waxa uu yahay isbaandhesku labada marba wuu ka density badan yahay density-ga biyaha. Cambaha. ku dhex rid biyaha asagoo qolofkiisa wata wuu sabeeyaa. then asagoo qolofka laga fiiqay wuu sabeeyaa. labada marba wuu sabeeyaa. tani macnaheedu waxa uu yahay cambaha wuu ka density yar yahay density-ga biyaha. barbanooniga. ku dhex rid biyaha asagoo sidiisa ah wuu sabeeyaa.